soo dhaweeyay naguna soo dhaweeyay magaaladoodii laakiin maanta halkan aan joogno waxaa ka muuqata sharaf iyo natiilo ciidamo Soomaaliyeed oo isku dhaf ah oo labisan oo u eg qarannimadii Soomaaliyeed diyaarna u ah dalkooda inay ka xoreeyaan cadowga waa horumar iyo sharaf ay ummadda Soomaaliyeed ku tilaabsatay waana idinkugu hambalyaynayaa waxaan mahad halkan uga dirayaa ciidamada walaalaheen ee AMISOM gaar ahaan ciidamada Kenya iyo Ethiopia oo ciidamadeena ku caawiyay tababarada kala duwan oo iyaguna qayb ka ahaa amniga waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waxaan idinka gaar ahaan idinkaga mahad celinayaa inaad dalkiina ugu hibayseen waxa ugu qaalisan oo dal loo hibeeyo dhiiggaada iyo naftaada inaad soo diyaariseen inaad naftiina gelisaan dalkiina waa idinku ammaanaynaa abaal baan idinkaga haynaa inteenna kale oo madax iyo shacab ah madaxdeenna waxaana la ka rabaa inaan idinku maamulno cadaalad qalabka iyo mushaarka iyo xaqa aad leedihiinna inaad bil walba heshaan wasiirkii gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka way fadhiyaan waxaan leeyahay waa in wax walba oo ka dhiman la idiin soo dhammaystiraa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay iyagu naftooda bixiyeen maxaad bixinaysaa hadday dhiiggooda bixiyeen maxaad bixinaysaa sharaf weyn oo inaan maanta joogno tuulada Gooboyn oo aan soo marray isku darka webiga iyo badda webiga Juba iyo badda halka iskaga daraan waxa maanta horteena fadhina waa shacabkii reer Gooboyn oo u xiisaysan una soo dhaweynta golaha wasiirada ee ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka ay hogaaminayaan waftigooda booqashada ku joogay iyo shirkooda golaha wasiirada oo ka dhacay magaalada Kismaayo mudane ra'iisul wasaare shacabku sida ay ka hadlayaan waliba wixii iyaga ka sii dambeeyay reer Gooboyn way ka sii nolol adag yihiin iyaga ugu roon marka ugu horeysa shacabka reer Gooboyn waa idin salaamay waana ku mahadsantihiin qalbi furnaanta aad nagu soo dhaweyseen marka labaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamadii Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ahaa iyo ciidan walba iyo madaxtinimada madaxweyne Axmed oo suurto geliyay inaan maantay annagoo nabada meeshan ku caweyno ciidankii ka qayb qaatay sugidda amnigaas mahad ayaan u haynaa kuwii ku geeriyoodayna waxaan leenahay Ilaahay jannada ha idinka waraabiyo waxaad u dhimateen xorriyadda ummaddiina waxaan la qabaa madaxweyne Axmed dawladda federaalku waxay ka qaadan doontaa kaalinteeda in wax walba oo aad xaq u leedihiin la idin siiyo caawinaadda aad codsateenna waa la idin siinayaa haddii Ilaahay yiraahdo madaxweynahan kala tashan doonaa way maqlaayaan wasiiradii waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga oo dhibaatada sheegtay in dhibaatadooda wax laga soo qabto